waxaa shalay laga daahfuray caasimadda Garowe bandhigga shaqada iyo shaqaalaha ee Puntland kaasoo ahaa sanadkii saddexaad oo lagu qabanayo Puntland. Sanadkan waxaa door weyn ka qaatay shirkadda Dahabshiil Group oo soo bandhigtay fursado maalgashi oo dhalinyarada gaar u ah iyo shaqaale looga baahan yahay xarumaha Dahabshiil Group. Sidoo kale waxay shirkadda Dahabshiil Group soo bandhigtay adeegyada ay u hayso bulshada sida adeegyada isgaarsiineed ee shirkadda Somtel. Shirkadda Somtel adeegyada ay u hayso bulshada waxaa ka mid ah eSIM card iyo adeega eDahab iyo internet oo casriyeyn lagu sameeyay. Sidoo kale bankiga Dahabshiil ayaa soo bandhigay fursadaha maalgashi ee uu hayo bulshada. Waxaa booqday goobta ay Dahabshiil Group ka degan tahay bandhig carweedka Puntland. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni isagoo Dahabshiil Group uga mahad celiyay kaalinta muhiimka ah ay bulshada ugu jirto. Sidoo kale waxaa goobta kelmado ka jeediyay gudoomiyaha Dahabshiil Group Puntland Ali Siciid Ilka Boqolle oo bulshada u sharaxay kaalinta Dahabshiil Group Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyaba. Anigoo ku hadlaya sida la sheegay magaca Dahabshiil Group Puntland oo ka kooban Somtel oo ka kooban Dahabshiil Banki oo ka kooban xawlaadda Dahabshiil oo ka kooban Migradan iyo dhammaan qaybaheeda kala duwan ee Dahabshiil Group. waxaa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo madasha tan quruxda badan. waxaan aad u bogaadinayaa dhammaan dadkii soo abaabulay oo ay wasaaraddu hormuud ka tahay oo ay ku dhigaan qolada joog feerkii iyo dadkii sponsor gareeyay. intaba mahad ballaaran baan u jeedinayaa. waxaan ilaahay mahad ka gaaray waa ku mahadsantihiin. farxad kale ii ah maanta inaan qoraahdayda ka ilaado halkaan ku aadan Dahabshiil Group. Dahabshiil Group si aad la socotaan waxay ka mid tahay shaqabixiyayaasha ugu mugga weyn ee Puntland marka laga reebo dowladda Puntland. waxaan is leeyahay waxay kaga jirtaa safka hore ama kow ama labo. ilaahay mahadiis Dahabshiil waxaa la asaasay 1970kii inkasta oo Puntland laga asaasay 1996 waxaana xilligaa lagu asaasay hal raadiye iyo hal qof oo shaqaale ah iyo hal shaqo oo xawaalada. ilaahay mahadiis maanta waxay maraysaa adeegyo 10 ka badan in ay Dahabshiil Group ka hayso Puntland. waana wax ilaahay loogu mahadnaqo iyo shaqaale gaaraya 1000 ama wax ku dhow. dhanka kale bulshooyinkii ka soo qayb gashay bandhig carweedka Puntland ayaa qaatay adeegyada ay bixiso shirkadda Somtel waxayna soo dhaweeyeen horumarka ballaaran ay Somtel ka wado Puntland iyo gobolada Soomaaliyaba. shirkaddan iga dhameysay Dahabshiil anigu waxaan ka mid ahay dadka macaamiisha Dahabshiil ka mid ah oo inta badan maalgelinta iyo arrimaha la xiriira iyo banka iyo isticmaala marka adeegyadooda iyo shaqooyinka ay ummadda u hayaan oo ku faraxsanahay. wadanku markii Soomaaliya ay burburtay shirkado badan baa lagu cayntay oo wadanku lagu baxsaday oo wax la isugu diri jiray oo marar xafiisyo iyo hal xafiis iyo taar iyo mari jirtay. marka arrimo badan baa laga soo maray. maanta in aanay halkii ku harin haddii wadanku uu burburay shirkadihii dalku intuu kabanayayba la korayay bay ka mid ahayd. magacaygu waa Khayr Axmed Cawad. halkan maanta Somtel waxaan ka furanayaa kaar adeega loo yaqaan SIM card. waa adeeg kuu fududeynaya wax walba aad u baahan tahay kadib markay cilado badan iga qabsadeen kaararka hore aanu haystay ayaan maanta halkan u imid inaan furto. waa ku faraxsanahay inay iga qabtiri doonto caqabadii hore ee haystay. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta waxaa ka soo qayb galay carwada bandhigga shaqooyinka ee Puntland Job Fair ee magaalada Garowe. adeega Dahabshiil Group ayaan maanta ka furtay kaarkan Somtel oo leh eDahab iyo internet xawaarihiisu sareeyo. marka aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda Dahabshiil Group iyo Somtel oo maanta kaarkan aan ka furtay. Somtel waa dookhayga waana dookha dadweynaha.